سعيدو وعياريهن Soomaaliya oo khadka dhexe uga ciyaara kooxda Elman waxa uu la soo baxay xirfado kala duwan kuwii ay la soo bixi jireen ciyaaryahanadii hore ee Soomaaliya numberka 17 ayuu u sitaa kooxda Elman waa ciyaaryahan joogta oo kooxda Elman ay u arkaan ciyaaryahan joog leh oo kubadaha si qurux badan ugu wareejin kara weerarka kooxda daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij aan ku eegayno qaab ciyaareedka ciyaaryahan Sacيدو وكوي 20 سنة جير له أود عيارات أو لقاب عياريهن ككوحدة أرسنال باتريك فييرا وحاسيادة إيش وجوها يكوحا كلا صوماليا كدسن دتك قار وحي لما تلان قاب عيارات كياسيمة وكوحدة إلمن يحول كقرن ككتير سنة عبد الرحمن باسوس oo ciyaaryahan kooxda Elman ka tirsanaa isla markaana imika qayb maamulka ka tirsan ayaa ahaa shakhsigii isha ku dhuftay xirfadda ciyaaryahanka waxa uuna ka soo xulay xaafadda Kaasa Balbalaare ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho kadibna waxa uu suuro galiyay inuu ku biiriyo kooxaha heerka hoose ee kooxda Elman bismillaah سعيد محمد محمود ciyaaryahan dabcan aniga oo ugu horeeyay markiisii ugu horeysay aan u bilaabay inuu maarta kubadda cagta aan ku dhiirigeliyay inuu noqdo qof player ah ama ciyaartoy ah oo dabcan raba jecel kubadda cagta ah Soomaaliya inuu maartay wax ka noqdo Saciid isagoo yar ayaan waxaan ka soo kaxeeyay xaafadda degmada Hodan waxaana maartay degmadaas deganaa dabcan ciyaartoy kale laakiin isaga wuxuu u qalmay ama aan u arkay markaas inuu yahay ciyaaryahan muhiim u ah mustaqbalkiisa dambe wadankeena hooyo iyo kooxda Elman dabcan Saciid Maxamed Maxamuud Sacيدو markiisii ugu horeysay isagoo yar ayaan waxaan u sameeyay wax la yiraahdo academy oo ah ay sameysay kooxda Elman oo dabcan ahayd degmooyin kasta inay ka sameyso ciyaar ilmo yar oo dhalinyaro ah oo maartay dabcan raba inay sameeyaan maartay footballka inuu maartay noqoyo maartay wax lagu faano oo ay ku faanto kooxda Elman haddii aad daawato Sacيدو waad garan sida uu kubadda u xirfadeynayo oo waaba ciyaaryahan dhameystiran waxa uu aad u jecel yahay kubadaha dhulka ku socda waxa uu isku dayaa inuu daafacyada kooxaha kale qalqal geliyo Yusuf Macalin Nuur Yucali oo tababaraha kooxda Elman ayaa isagu waxa uu sheegay in ciyaaryahan Sacيدو uu yahay ciyaaryahan xirfad fara badan ku jirto waxa uuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay qaabka ciyaaryahanka kubadaha uu xirfadeeyo بسم الله سعيد محمد محمود وحو كمid ahaa ciyaartoydii juniorka Elman ee kuleed centerkoodu oo garoon Korseed ama Kaasa Balbalaare hadba si loo yaqaan Saciid waxa macallin u ahaa Cabdiraxmaan Baazuuki iyo Mahad wuxuuna kamid ahaa caruurtii markaas lagu ababinay in sportiga ay heer ay ka gaaraan mustaqbalkana matalan ciyaartoyda waaweyn naadiga Elman runtii Saciid markii uu firfircooni iyo karti muujiyo wuxuu Jaanis u helay ama qaab ciyaareedkiisa wanaagsan lala dhacay runtii wuxuu ka mid noqday 2006 ciyaartoydii heerka koowaad ee naadiga Elman Saciid wuxuu u safray dalka Kenya 2 sano kadibna wuxuu dib ugu soo noqday dalka isagoo wali u ciyaaray naadigiisa Elman matalayna national teamka haddana dadka ugu cadcad ama line upka naadiga Elman runtii wuxuuna ka mid noqday ciyaartoydii matalaysay under 20 Olimbikada Israa'iilka lagu ciyaaray dalka Djibouti iyo Suudaan wuxuu kaloo ka mid noqday ciyaartoydii 2 sano ee la soo dhaafay ee kamid tagay wadanka Tanzania ee matalay Eastern Central Africa Challenge Cup-ka Sacيدو hadda waqti xaadirkan wuxuu ka mid yahay ciyaartoydii 2 sano ee la soo dhaafay xiriirsay horyaalka inay ku guuleystaan naadiga Elman Sacيدو waa ciyaaryahan laf dhabar u ah naadiga Elman iyo xulka qarankaba garoonka lagu ciyaarayo ma ahan kan ay kubadaha isku ciirsadaan ciyaartoyda caalamka balse waxa hubaala in xirfadda Sacيدو ay ka sareyso ciyaaryahanno nasiibka u sahlay inay ka ciyaaraan horyaalada Yurub Anas Ali Maxamuud Anas Goobe oo ahaa ciyaaryahan hore oo kooxda Elman daafaca uga ciyaari jiray xulka qaranka waxa uu aaminsan yahay in Sacيدو uu yahay laacib ku soo biiray
ciyaaryahanada Soomaaliya. ciyaaryahan waxa kale oo sharaxan the best player ciyaaryahan Saciidow oo lambarka 17 wata waa ciyaaryahan ay soo barbaarisay naadiga kubadda cagta ee Elman yaraantiisii asagoo 12 sano jir ah waxaan keenay academy ay leedahay naadiga kubadda cagta ee Elman oo ka dhisan muxuu ahaay degmooyinka gobolka Banaadir laga dhisay waxa macallin u ahaa macallin Baasuuke oo jooga markaas degmada Hodan Saciidow wuxuu ka mid ahaa ciyaaryahanadii mustaqbalka u yeeshay inay ka mid noqdaan ayagoo ka mid ahaa dadkii mustaqbalka ku soo yeeshay naadiga Elman haddana inuu noqdo ciyaaryahan aan ku tashano ama oo ku tashano national teamka waa ciyaaryahan markii la fiiriyo waa aragnimadiisa ee ka soo bilaabatay 10 jir heer hoose ee ka soo bilaabatay wuxuu ka tirsanaa mashruucii naadiga Elman ayuu ka tirsanaa sidaan hore u soo sheegay waxa macallin u ahaa macallin Baasuuke ayaga iyo 25 qofood asaga ka mid ahaa inta badan dadka hadda dheela ama ku leh isboortiga Soomaaliya saaxada ka muuqda waxay u badan yihiin mashruucii Elman oo Sports for Peace ka dhalinyarada yararka la sameeyay markaan ka soo hadlo ciyaaryahan Saciidow wuxuu ka dhilaa midfield waa ciyaaryahan wanaagsan waa ciyaaryahan mustaqbal ku leh naadiga waa ciyaaryahan u dheelo national teamka Soomaaliya una baahan ka soo bilaabay under 17 ka soo bilaabay under 20 ilaa hadda qaranka waaweyn joogo Saciid Maxamed Maxamuud la yiraahdo lambarka 17aad uu xirtaa naadiga Elman ciyaartooyda xulka qaranka waqtigu qayb ka noqday wayna u badan tahay hadda mar kale in loo xulo waa ciyaaryahan physical ahaan dhisan marka la yiraahdo kubadda cagta wuxuu kale ciyaaryahanka ku wanaagsan yahay in markaasi qad ka dhaxay oo kubadda kula dagaalamo marka Saciid Maxamed Maxamuud runtii waa ciyaaryahan markaasi aan la dheelsan karin kana mid ah ciyaartooyda jir ahaan muuqaal ahaan kubadda cagta ku wanaagsan marka ciyaaryahankaas oo kale hadii xulka qaranka seniorka laga mid dhigo waa la oran karaa xidig natiijo u keeni kara waa lambarka 17aad ee Elman waana ciyaaryahan markaasi kubadda cagta qaybta dhaxda aad uga wanaagsan muuqaal ahaan waxa lagu tusaaleyn karaa xitaa inuu la macno yahay xidiga Cristiano Ronaldo uu jir ahaan markaasi matalo kubadda waa uu dhiibaa uu dhaliyaa waana runtii xidigaha lafdhabarka ee dalka Elman kalina looma tirin karo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ayuu anfacayaa ciyaaryahankaasi marka sidaas ayaan ku leeyahay ciyaaryahanka kubadiisa aad bay u sareysaa runtii waan arkay isagoo tababar sameynaya iyo isagoo kooxdiisa u ciyaaraya inta kulan markaasi aan tabinayay horyaalka dalka maadaama horyaalka dhan aan tabiyo oo wariye arrimahan isboortiga garan ciyaartooyda Soomaalida aad ula socdaan ahay waxa ii muuqanaya karti dheeraad iyo dadaal hufan uu sameynayay ciyaaryahanka Saciid Maxamed Maxamuud la yiraahdo oo lambarka 17aad u xirta kooxda kubadda cagta markaasi Elman marka ciyaaryahanka waa qaabkaas waxa uu kale ku wanaagsan yahay laadadka dhaadheer ee laga tuuro meelaha ka baxsan dilinta 18aad wuxuu kale aad ugu sareeyaa in markaasi meelo fogfog kubadda uu ka dhaliyo in bilisonada in uu tuuro si wanaagsan inta uu tuuro dabadeed shabaqada kubadda ay sidaas ku xigta marka runtii ciyaaryahanka tayadiisa kubadeed 100% ayaa la dhigi karaa waa nin dheer oo joog leh ciyaaryahanada joog leh ee xulka qaranka ayuu ka mid yahay iyo kooxda kubadda cagta ee Elman marka runtii ciyaaryahankaasi waa ciyaaryahan mustaqbal wacan ku leh ciyaartooyda dalkeena Soomaaliya waxaana markaasi la oran karaa waa xidig dhammaan bulshada Soomaaliyeed u faa'iideyn kara marka loo firiyo waqtigan runtiina markaasi la oran karo waa ciyaaryahan karti iyo hufnaan intaba isku darsaday Saciid Maxamed Maxamuud intaan ka arkay kubadda cagta ma ahan mid lagu soo koobi kara daqiiqad iyo 10 daqiiqo iyo saacad in looga hadlo marka ciyaaryahanka aad bay u sareysaa xirfadiisa kubadda cagta intaas ayaana marka waqtigan ka tilmaami karaa the defender cut that out in the nick of time well executed taken it well under pressure no it's out of play off the play From the supporters' point of view, so many players out there capable of getting people up off the seats. He's in the clear. Here's the chance. Goalkeeper might be needed again. ciyaaryahan Saciid Maxamed Maxamuud Saciidow
oo ah ciyaaryahan aan saaxiib aad iskugu dhow aan nahay ciyaaryahan Saciido ma ahan ciyaartooyda dalka Soomaaliya aan ku bartay ciyaaryahan Saciido waxa isla ciyaari jirnay horyaal dalka Kenya waxa isla ciyaarnay waxaan wax badan isla ciyaaraynay dalka Kenya ayaan iskuula dheeli jirnay Saciido wuxuu ahaa ciyaartooy aad u wanaagsan oo kubadiisa aan ka jeclo waa ciyaartooyda jecel kubadaha wantuuga ciyaartooyda jecel kubadaha inay kooxdaani haysato waa ciyaaryahan aad u jecel attacking footballka banooniga loo yaqaano Saciido dadka ayuu ku cusub yahay maan Saciido ciyaaryahan aad u wanaagsan waaye Saciid aniga xirfad ahaan intaan ka haysto waxaan isla soo ciyaarnay dhowr koob markii kubadiisa aan arkayna wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda kuwada ugu wanaagsan xagga weerarka markii la dhaho attacking-ka Saciid midda kale physically ahaan wuxuu u qalmaa ciyaartooyda European-ka sometimes ciyaartooyda qaar waxay yiraahdaan Saciid Soomaali ma ahan ayaan la dhihi jiray Kenya markii la joogo maadaama waxay eegi jireen physicalkiisa iyo xooggiisa Saciid Maxamed Maxamuud markii dalka Soomaaliya imaaday horyaalka wuxuu ciyaarayay kooxda kubadda cagta Elman laakiin aniga maqal ahaan markii hore waxay igu soo gaartay kooxda in Banaadir Telecom uu ciyaarayo sanadkii dambeetana Elman ayuu u qaaday anigana ma ka xanaaqin maadaama ciyaaryahan Saciid oo nin saaxiibkay yahay meeshii markaas la habooneedna uu go'aan ku qaatay ayaan go'aankiisa raacsanahay Saciid waan ku farxay markuu ku guuleystay horyaalka dalka Soomaaliya markiisii koowaad xilligan waxay ahayd xilligii horyaalka markiisii labaad uu qaado marka Saciid wuxuu haystaa koox aad u wanaagsan wuxuu haystaa ciyaartooy aad u wanaagsan ciyaaryahan wanaagsan sidiisa wuxuu ku wanaagsan yahay inuu haysto koox wanaagsan waxaan u leeyahay sidaas ma dareemaysid pressure ma dareemaysid macnaha dadnimo xumo ma dareemaysid koox la'aan waxa dareemaysaa kubadda farxadeeda ayaa dareemaysaa Saciidna intii oo dhan wuu haystaa Saciid Maxamed Maxamuud waa ciyaaryahan qadka dhexe ka ciyaara aniga faahfaahin dheeraad Saciid kubadiisa ayaa cadeynaysa oo ma ka dhigi karo ciyaaryahan Saciid dadka way wada arkeen waa ciyaartooyda loogu jecel yahay wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay ciyaartooy under 17 ka soo qayb galay under 20 ka soo qayb galay under 23 ka soo qayb galay oo Olympic soo ciyaaray waa ciyaaryahan national team ciyaaray ciyaaryahan intaas levelkaas gaaran wuxuu mudan yahay in lagu daydo Saciid wuxuu kubadda ka soo bilaabay heer hoose wuxuu ku keenay meesheedii ugu dambeysay ciyaartii shalay dhacday goobjoog ayaan ka ahaa waxaana aad iyo aad ula dhacay ciyaartooyga la yiraahdo Saciidow markaad u fiirsato waa ciyaartooy muhiim u ah qaranka qaasatan kooxda Elman markaan ciyaarta ay mareysay 10 daqiiqo ayuu wuxuu la soo kacay xirfado iyo baasas iyo maskax aan lagu aqoon inta badan ciyaartooyda Soomaaliyeed Saciidow markaad u fiirsato wuxuu soo xasuusiyay ciyaartooygii la dhihi jiray Patrick Vieira oo ahaa ciyaartooy qadka dhexe deeqsiya maskax badan jirkiisana athletic ahaan u dhisan yahay awoodiisa iyo jooggiisa markaad fiiriso waxaad isleedahay waa Patrick Vieira oo Soomaaliya teeda kale markii dhan kale u fiirsato asluubta anshaxa aadaabta Saciidow waa nin si walba oo ciyaartu ay noqoto qaasatan markii hal gool lagu hogaaminayo kooxdiisa aan wax isbedela iyo wax walwal aan muujin oo kalsooni uu isku hayay asaga uu lahaa isticmaalayay kalsoonidaas oo ka timid awoodiisa iyo maskaxdiisa Saciidow waa nin wiil dhalinyaro oo mustaqbal leh aniga qaasatan waxaan u dooran lahaa ciyaartooyga sanadka Soomaaliya fuad horta anigoo yar aan maartay waxaan ku soo biiray akademiyada kooxda Elman aan sidaas darteed aan nasiib ugu helay inaan maartay aan ku soo biiro 2006 oo ugu horeysay markii ugu horeysay aan maartay teamka Elman aan ku soo biiro sidaas darteed ayaa ii saamaxday inaan maartay naadiga weyn Elman aan ku soo biiro goorma kooxda Elman ku biirtay line up-kooda horta markaan imaanayay waxay ahayd waqti yar ahayd oo 2006 ahayd aniguna aad aan u yaraa marka saad nasiib aan ugu yeeshay isla markaasna geemka hore isbedel aan ku soo galay oo waqtigaas 2006 kadib Janis waxaan u helay in ciyaartii labaad oo nasiib u yeeshay oo aan la ciyaarayna kooxdeena Elman kooxda Elman aan nasiib u helay iyadoo la dheelaysay naadiga weyn ee Banaadir Telecom